ma ogtahay inuu jiro qof ku bixiyay qarash badan si uu noqdo qofka ugu foolxumada badan ee adduunka, iyadoo ay dunida ku badan yihiin dadka jecel inay qarash badan ku bixiyaan qaabkii ay u noqon lahaayeen ruuxa ugu quruxda badan ee adduunka. ayaa waxaa soo baxaya taa beddelkeeda nin uu qarash badan ku bixiyay si uu noqdo qofka ugu foolxumada badan, taasoo hindhaha aan loo dhameystiri karin. arrinkan ayaa soo jiitay dad badan, taasoo ay ku noqotay fajac iyo lama filaan. sida ay qorayaan warbaahinta caalamka qaarkood, gaar ahaan dalka Ingiriiska, ayaa nin magaciisa lagu sheegay Gavin Bazzillo oo gelaya sanadada afartamaadka. Gavin ayaa hadafkiisi waxa uu ahaa inuu ku guuleysto koobka foolxumada adduunka, taasoo lacagtiisi uu ku bixiyay inuu ku sameeyo qalin wajigiisa si uu hadafkiisi u gaaro. wararka ayaa intaa ku dareeya in Gavin uu ka mid ahaa ciidamada nabadgelyada ee Britain, taasoo wajigiisa qalin uu ku sameeyay kadibna uu la soo baxay muuqaal dadka aadanaha caadiga ah aanan lahayn. nin meel ku daalay nin ayay waxay u tahay meel cusub, iyadoo dad badan ee dunida ku nool ay raadinayaan si ay markaasi qalin ugu sameeyaan jirkooda ayna u noqdaan kuwa ugu quruxda badan ee adduunka. warshado badan oo dunida dacaladeed ku yaal ayaa waxay soo saaraan qalabka la isku qurxiyo. ayaa wuxuu Gavin Bazzillo ka mid noqonayaa dadka naadirka ah kuwaas ku fikiray wadada foolxumada. si kastaba waxaan halkan ka dheehan karnaa inuu aadanaha Ilaahay abuuray, qof kasta oo ka mid ah aadanahana inuu ku abuuray hami, taasoo uu doonayo mar walba inuu ka gungaaro, maadaama qof kasta uu si u fikiro. haddaba daawade, qarash ma ku bixin lahayd inaad noqoto qofka ugu foolxumada badan adduunka?